waxaanu ku wargelinaynaa daawadayaasheena meel kasta oo ay dunida ka joogaan inaanu idiin bilaabi doono goordhow barnaamij taxanaha oo aanu ku faahfaahin doono sababihii ka dambeeyay dagaalkii Ciraaq ay ku qabsatay Kuwait sanadkii 1990 maxay ahayd ujeedadii ka dambeysay dagaalkaasi yaa mas'uul ka ahaa maxay ahayd wixii dhexmaray madaxdii dalka Kuwait iyo madaxweynihii xilligaasi ee Ciraaq Saddam Hussein dagaalkaasi Saddam Hussein muxuu ku noqday ciidankii ugu awoodda badnaa ee gobolka Bariga Dhexe iyadoo 33 dawladood Sacuudigu ay difaacayeen looguna talagalay in Sacuudigana ay difaacaan Kuwaitna ay Ciraaq ka xoreeyaan sidee ugu suuro gashay ciidankii Saddam Hussein ee la oran jiray Xarisul Jamhuuriga inay taatiko la yaab leh ku qabsadaan magaalo ku taala wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo la yiraahdo Xalafja magaaladaasi sidee ku qabsadeen Xarisul Jamhuuriga dagaalkaasi maxaa ka yaabiyay madaxweynihii xilligaas ee Mareykanka George W Bush iyo saraakiishiisii ciidamada Saddam Hussein maxay ahayd luqadii uu kula hadli jiray dadkiisa marka uu dagaal gelinayo Saddam Hussein sidee ku sheegtay dawladiisu inay iyada ku guuleysatay dagaalkaasi sideese ku sheegteen ciidamadii huwanta u horkacayay Mareykanka inay iyaguna dagaalka ku guuleysteen doorkii dalalka Carabta ee dagaalkaasi muxuu ahaa sidee uga qayb qaateen dawladii Soomaaliyeed ee xilliga jirtay ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre door inteleg ayay ku lahayd dagaalkaasi iyo xoreyntii dalka Kuwait barnaamijkan oo noqon doona daawadayaal barnaamij taxana ayaanu idiin soo dayn doonaa haddii Allah awoodilihi ka raali noqdo maalin walba oo talaadaha habeenka Arbacadu ay soo galayso wararka Kalson TV kadib waxaan sidoo kale idiin soo dayn doonaa maalin kasta oo Khamiisa habeenka Jimcuhu soo galayo wararka Kalson TV kadib waxaana barnaamijkan oo taxanaha uu bilaaban doonaa 21 bishan May sanadka 2013 haddaba la soco yaanu ku seegin barnaamij taariikheedkaasi xiisaha leh ee ku saabsan dagaaladii la yaabka lahaa ee dunida ka dhacay gaar ahaan dagaalkii gacanka ee 1991 dhexmaray Saddam Hussein iyo ciidamadii huwanta